Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamayaa dhammaan dadkaas ku luuqada nahay oo i fahmayo. Waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo arrin mowduuc in badan maskaxdayda ku wareegayay. Dhowr jeer siyaabo dad uga hadlaya aan arkay. Laakiin pointiga saxda ah ee sababta u ah aan qofna yacni ka hadlin laakiin ay isweydiiyeen dadku laakiin aysan kasoo jawaabin. Aragtidaada iyo fikirkaaga adiga laftarkaagu si aad u fikiraysid waa kasoo hadli kartaa waad nala wadaagi kartaa. Dad badan baa waxay markasta ka hadlaan dadku waxay ka hadlaan ama qaarkood fikiraan oo maskaxdooda uun ka shaqaysiiyaan qaarna ay bulshada la wadaagaan sababta bulshadeenu ay u tahay bulsho dib u dhacsan. Maalin waxaan arkay video la leeyahay 30 jirka wadanka China oo kale ama Hindiya oo kale waa engineering ama waa doctor waa qof takhasus leh ama waa saynisyahan yacni maxaa anaka 30 jirkeenu waa wuxuu leeyahay like share buu raadinaya halka 30 jirada kale engineering iyo ay yihiin doctors iyo dad takhasus leh ay yihiin. Su'aashaas mar walba isweydiisaan laakiin sababta waxa sababay ma raadisaan. Yacni waa raadisaan sababta la isweydiinaya waxa loo raadinaya tahay. Haddaba ana hadda kula share garaynaya sababta dib u dhacaas inoo keentay. Sababta u yihiin dadkeedu dad wada karkarsan dadkeedu ay wada yihiin dad dabeecadoodu kulushahay dad aan deganayn dad xagga aqooniyan dib u dhacsan dad dhaqaaliyan dib u dhacsan sababta lambar 1 ka ayaa ii sheegaya dad badan waxay ku eedeeyaan dawlad la'aanta kaliya maaha. Ana haddaba hadda idila share garaynaya adiguna fikirkaaga oo la soo wadaagi kartaa bulshada. Waan jeclaan lahaa dadka inay ka wada hadlaan arrinta 100% waxaan jeclaan lahaa arrintaas inay dadku ka hadlaan sababta dib u dhac inoo keentay. Waa laga yaabaa fikirkayga inaad si khaldan u fahanto laakiin anigu fikirkaygaan kula wadaagaya adigana kaaga waa nala wadaagi kartaa aan bilowno. Aniga waxaan aaminsanahay 95% sababta ugu weyn ee keentay inay dadkanu noqdaan bulsho dib u dhacsan bulsho dhaqaaliyan dib u dhacsan bulsho aqooniyan dib u dhacsan inaan noqono waa guurka. Dad badan baa isweydiin doonaa guurku waa wax wanaagsan waa wax lagu dhowrsado waa wax lagu tarmo maxaa ugu sababeynaysaa. Aniga waxaan ugu sababeynayaa wax walba waxay leeyihiin wanaag iyo xumaan. Wax waliba wanaag kaliya ma aha. Markaas sababta aan ugu sababeynayo waxay tahay guurka ma sababayno sababta aan guursanayno. Ma aqaani dadka qaar si u fikiri doonaan laakiin aniga waxaan aaminsanahay inaynan u dhiganin sababo guurkeena inaan iska guursano. Gabadh waxay u guursataa heblayaa la guursaday aadna guurso. Mostly jacayl laguma guursado. 2 lagama fakaro qofka goorma ayaa guursanaya. Yacni mas'uuliyadda ka imaanaysa guurka lagama fakaro. Halka maxaa ka imaanaya 2 wax. Wixii koowaad oo gabadhu u guursatay ahayd heblayaa la guursaday oo aysan jacayl ku guursan aysan ku guursan waqtigan ma yahay waqti aan guursan karo. Ma ahay qof mas'uuliyadda ka dhalanaysa guurkaas mas'uuliyadeed qaadi karta oo dabari karta. Wiilku wuxuu u guursanayaa uma guursado jacayl uma guursado waqtigan ma yahay waqti aan guursan karo ma yahay waqti aan mas'uuliyadda qaadi karo ka imaanaysa guurka. Wuxuu u guursadaa yaan lagu dhihin hebel waa doob. Ma isku raacne. Kadib maxaa halkaa ka dhalanayo. Marka aad guursatid ma ahan ka fakaraynaa gabadhii waxay ka fakaraysaa oo kaliya hotelkee arooska la igu dhigayaa maxaa soriyo lacag intee leeg baa familkayga la siinayaa meher intee leeg baa la ii samaynayaa yacni sababtay taa u samaynayso waa heblaayo caali caasha oo aan nolosheeda waxba ka qusaynin mas'uuliyadda bari koraysa aan la qaybsan doonin yacni dad aan waxba nolosheeda ka gelin. tallaabo kasta iyo go'aan kastood qaadanaysid adiga ayuu noloshaada ku soo laabanaya.
heblaayana ma saameynayso, cali ma saameynayo, ciise ma saameynayo, adigay ku saameynaysaa iyo wixii aad dhasho. soo mas-uuliyadda waxaa ka imaanayso awlaad baad dhalaysaa. sababta aan u leeyahay dib u dhaca waxaa mas-uulka ah waa guurka waxsaas. soo awlaad baa adduunka keenaysa. awlaad marka adduunkan keento, adduunkan awlaad waxay u baahan yihiin. waxay u baahan yihiin bilkow nolol bay u baahan yihiin. keliya uma baahna bariis iyo caano inaad siiso. waxay u baahan yihiin adduunyadan aad keentay waxay ku wajihi lahaayeen. waxay u baahan yihiin aqoontay ku noolaan lahaayeen oo ay ku shaqaysan lahaayeen oo naftooda ku anfici lahaayeen. soo adigii awalba uguma talagelin, kumaasa tashanin, kumaasa si xisaabtan mas-uuliyadda ka imaanayso. waxaad tidhi ilaahay baa irsaaqaya. yes ilaahay baa ku irsaaqaya, laakiin ilaahay gacmaha iskorsaara kumuusan dhihin. adoo afka cirka u taagaya oo waxba la joogin, qof bini aadana oo nolol u baahan oo leef u baahan ay adduunkan keenaysaa. kow ilmihii aqoon u baahan yahay, waxbarashii u baahan yahay, wuxuu bari isku anfaco ayuu u baahan yahay. ilmihii adiga waxba uma haysid, yaa rabbi ayaa cuntadiisii caanihiis ku raadinaysaa. ilaahu iga kor, ilaahu iga kor, saa ugu jirtid buu qofku weynaanaya. qofku markuu weynaada adduunyadaanu soo dhex istaagaya isagoon waxba la joogin oo wuxuu ku wajaho lahayn. soo dib u dhaca anagu dhacay waa taasa. kow qofka wuxuu bilaabayaa inuu noqdo qof meelaha iska taagtaagan, ama qofku inuu tahriibo, ama qofku wax meel aan fiicnayn inuu galo, ama uu daraagis uu bilaabo qaylaadii qaad u meel fariisto. soo kadib kii asagoo sagagarsid waa oo meelaha u taagtaaga waxba la joogin, nolol adagoo life adag ku nool ayuu haddana la dhahayaa guurso guurso guurso, maa guursatay asagoo asba waxba la joogin oo mid kale sii guursanaa, toba kale ciyaal u dhalaa. kow halka waxaa ka imaanaysa kow inuu ilmo noloshan iyo adduunkan ay qof kusoo lugaysid, uu ilmo 10 ciyaali dhashid oo ilmihii ay bilaa aqoon noqdaan, bilaa waxbarasho noqdaan, nolol adagoo leef adagoo qaxare ah ku korisid oo isagoo dhanba uu nerfoos yahay. laba waxaa soo kordhinaysa inuu qoyskii burburo, because markay mas-uuliyad imaado mas-uuliyaddii la dabari kari waayo waxaa imaanaysa dagaal, isqabqabsi, inuu qoyskii burburo, inuu maalin walba nin naag kale ninkii u cararo. maxaa keenaya guurarka badan, ninku inuu marba naag guursado sababtoo ah mar walba waxaa dhahnaa ninka asagaan awoodin inuu reerkiisa hore dhaqaalayo naag kala raadinaya. mataqaanaa naag la-aan ma joogaayo oo meel ma fariisanayo. tanuu ka cararaa 10 u dhalaya. markii uu qaxar iyo dhib iyo la kulmo wax keen caana keen uu wixii dabari kari waayo, qaylo iyo muro dhammaan waayo, uu cararaa uu fakanaa mid kale u galaa, uu cararaa haddana uu fakanaa mid kale u galaa. markaasuu dumarkii oo dhan rafaadinaya, 10 ciyaal ku raraya, ilmihiina ay rafaadayaan. marka waxaa idin leeyahay gabaray markaad guursanaysid ma tahay hooyo mas-uuliyadda ka imaanaysa meeshaas dabari karta. wiilow markaad guursanaysid ma tahay qof mas-uuliyadda dabari kara. waayo qofka biniaadanka adduunka keenaysa wuxuu u baahan yahay nolol, wuxuu u baahan yahay aqoon. soo ilmo aad ku korisay nerfoos, dhibaato, qaxar, nolol adag, haddana aqoon iyo cilmi adduunka uu la hortago aan haysanin inuu ku shaqaysto. soo halkaasaa dhibaatadu inaga haysataa. marka waxaan dhihi lahaa dadku aqoon ha bartaan, ugu yaraan xirfada ku shaqaysato baro. maalinta aad awooddo mas-uuliyadda guurka ka imaanaysa inaad dabari karto awlaadaada, aad dabari karto, guurso. kadib waxaa soo saaraysaa ilmo degan, akhlaaqiyan, dhaqan wanaagsan lagu koriyey, nolol habiya lagu koriyey, aan nerfoos ahayn, yacni baa soo saaraysaa oo aqoon leh, dalkoodana wax kusoo kordhinaya, ayagana naftooda anfacaya. marka waa idin salaamayaa, adiguna fikirkaaga nala wadaag.